intaa kadib waqtiguna waa haweenyan oo waqti dambe waxaan horta aad inagu mahadnaqayaa ka soo qaybgalka aad ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan shirkii wacyigelinta bilowga dabaysha ee aad layni qaybiyey ama laynagu marti qaaday si aad u ajiibteen horta taa waan inagu mahadnaqayaa waad ku mahadsantihiin intaa waxay dheer cudurka dabayshu maaha maanta uguma horeyso waxaa la bilaabay 1979 la bilaabay ilaa yomana hada maanta u socdaa wadamada adduunka qaar waa laga dabargooyay qaarna way ku jiraan oo wali waa lala rafanayaa waxa weeyaan cudurka dabayshu maxaa soo celcelinaya waxa weeyaan sanadkii 2 jeer 3 jeer markaan ku kulanaa su'aalo badan baa la isweydiiyay hadii jeer aan waan ogahay marka su'aalo badan baa la isweydiiyay hadii jeer aan waan ogahay in su'aalo badan la isweydiinayo laakiin su'aasha jawaabteedu waxa weeye maxay dabayshu u soo noqonaysaa talaalka dabaysha maxaa loo soo celcelinayaa maaha dabaysha kaliya talaal oo dhan uu jirayaa ilaa inta qof dhalayo inta dhalma jirto waalidiin intay caruur dhalayaan talaal horta uu jirayaa uu kala yar fududaanayaa oo midna waxa loogu tagayaa goobta caafimaadka midna waxa weeyaan waxa lagu xoojinayaa goobtii caafimaadka lagu xoojinayaayo baadiyaha iyo miyiga iyo magaalooyinka loogu tagayaa marka kan wuxuu ka mid yahay waa ciribtir adduunka laga ciribtiraya marka wadamo badan oo laga ciribtiray baa jira laakiin wadamadii dagaalada sokeeye ka dhaceen oo dhan hadday tahay Afghanistan hadday tahay Soomaaliya hadday tahay wadamada inala midka ah oo dhan dhammaanteed uu jirayaa waayo dadka isku dhaafaya maxay xaladka ka talaabaya awgeed baa ayayna u suura gelayn in cid walba meel walba lagu talaalo marka maadaama qof walba la talaali karin oo dagaal ay socdaan oo aan la tagi karin meelaha qaarkood oo sababo badan oo jira awgeed aan loo kolley uma istaagin inaan wax badan idhaahdo ujeedada halkan iskugu nimid waxa ka dambeeya waxa weeye in aan berri toole bilaabi doono ka hortagii cudurka dabaysha talaalkiisii kaasoo lagu fulin doono dhammaan gobolka awdal iyo dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan haddaba sanadkan awal waxaynu qaban jirnay 2 jeer sanadkii 2 jeer baa qaban jirnay sanadkan way ka duwan tahay 4 jeer baa la qabanaya March nimka ku jirno iyo April August iyo September oo soo socda maxaa loo qabanayaa waxa loo qabanayaa ujeedada laga leeyahay waxa weeye cudurkii dabaysha waxaynu ku jirnaa free from polio by night for the last 5 years 6 years baan oran karaa 2007 baa ugu dambeysay laakiin maxaa dhacay population movement-ka dadku socodkii isku socdeen imika last year 2012 waxa la helay 9 kiis oo polio ayaa Muqdisho laga helay ilmaha ina Muqdisho laga keenay hadii buurama la keeno ilmiha aan talaalku gaadhin khatar buu ku jira that's why loo badiyay oo loogu daray 2 jeer oo kale intii awal 2 ay ka marka anigoo ka hadlaya wasaaradda caafimaadka qaybta talaalka waliba waxaan ilaahay inaad message-kan qaadaan oo bulshada gaarsiisaan inay ilmahooga keenaan maadaama dadku ay isdhex socdaan dadka isdhex socda haddii la keeno ama adaa berri tagi doono adoo fayraskii sida haddaad timaado ka hor ilmi yaraa waad ku talaalaysa marka waxa weeyaan waa 3 cisho oo loo soo baxay waxa halkan socda waad arkaysaa dadkoo dhan way socotaa waxaa loo soo baxayaa in ilmo kasta oo xaq u leh in la talaalo oo laga talaalo talaalkii dabaysha inuu helo talaalkiisa haddaba wasaaradda caafimaadka waxay diyaar la tahay inay qof walba meesha uu joogo ku gaarsiiso talaal idinkana waxaa la idinga rabaa inaad dadkii gaarsiisaan ilmaha la keeni kari waayana aad soo qaadaan oo idinku ku sheegtaan inuu ka yahay ka hortag maadaama uu ka hortagaya waxaad soo qaadataa for example waxaad sawirataa ilma yar oo polio hal dhibic arsiinaya xumad male waxba labada dhibcood baa loo dhiibay labada dhibcood oo ka badbaadinaya inuu lug beelo inuu gacan beelo inuu curiyaabo hadhow toolana maxay ku keenaysaa ilmaha
ilmahaas iskuul ku geyn maayo ku gali maayo waa cabiyaa waxa laga yaabaa inuu mental retarded noqdo oo maskaxiyan u shaqayn waayo waxa ku imanaysa adigii economically markasta inaad support garayso kaa rabaa oo aad caawiso marka waxa weeyaan ambiilka aan ku dirayno waxa weeyaan bulshada reer Awdal inay carruurtooda keenaan 3 cisho soo socda talaalka u keenaan ilmo kasta oo xaq u lana ay siiyaan waxaan leeyahay wad maasantiin ka soo hawshan maanta aan iskugu nabadno waa hawl baaxadeeda leh dadku had iyo jeer marka ay dhibaato jirto unbay dareemaan marka si dhibaatadu ay yar tahay ma dareemaan bay ila muuqataa xanuunadan talaalkoo dhan waad ogtihiin wax daawo oo ay leeyihiin in aanay jirin ka hortegitaan ahaan mooyaane waxaynu wada ognahay Somaliland oo kale markaan soo qaato in xanuunkan jadeecadu ilaa boormana ha noqotay inuu halis badan dhawaan uu ku keenay oo carruur fara badan ay soo baxday oo xanuunkaa qabtay waa talaalkii waxaa loogu talagalayna waa gagaarkiina yaal waxay ku tusinaysaa taasi bulshadu wacyigelintoodu inay weli hooseyso oo marka ay dhibaatadu dhacdo $100 lagu bixinayo haddaba ilmaana dawba weyn oo hadday ugu badnaato waa xumatini waxaan siina waa dhakhtar hebel kula orod bal isbitaal hebel kula orod bal intanoo dawaa iibi kharashka galayay waa qayra caadi markaan u soo noqo tan maanta bilaami doonto beritooliye ee boolyara runtii aad bay noogu yartahay muddooyinka dambe oo dhan oo dabagoybayba ku jirta elimination aan idhaahda ayay ku jirta eradication weli maynaan gaadhina run ahaantii marka haddana dee waddannada jaarkoo dhani qaybteeda ayay ku yeelanayaan run ahaantii weliba waddannada dagaaladu aadkaa u hakiyey xanuunkii ama fayrastii xanuunkaa keenaysa way ku dhex jirtaa innakana dhinacyadoo dhan markaad eegto olol unbaa ka baxay runtii waa taas Soomaaliya la sheegay Djibouti bay wax ka iman karaan Ethiopia wax ka iman karaan cadan bay wax ka iman karaan gobolkan Awdal markaa dhinac walba uu fulay inta uu dhinac walba uu fulay yahay dhibaato meel ay ka jirtana dadkii ay isku gudbayaan weli xanuunkii uu inala jooga runtii carqaladaha aan sheegaya xagga dagaaladan aan wax badan hakiyaan leeyahay gobolkeennani maanta kama maqan meelo badan oo gobolka ka tirsan maanta nabadgelyo ma aha bal qiimaha nabadgelyadu ay leedahay carruurtii halkaa ku dhaqlay ama buurta lagula orday talaaliya gaadhsiin haddaan isbiimayno annagu dhex tegno ilmihii ma gaadhaynaa waa ka horraysa lama gaadhayo runtii annagu shaatiya cadcad intoon iska qaadanaba waan dhex socon karnaaye laakiinse ilmihii lama gaadhayo boqolkiiba waxaa laga yaabaa meelaha barhku in aanu 10 qof laga helin halkii 100 carruuraad ugu tala gashanay ayaa laga yaabaa 10 carruur inaad ka soo waa mid buurla ka jiila mid meel kale loola orday dhibaatooyinka dagaalka carqaladahiisa ama nabadgelyo darrada way ka muuqataa maanta gobolkan Awdal baan ka wada runtii wadaa ceeri gaabo ilaa Boosaaso ayay ku amniyo ay joogaan qaar baa gaarkacyo jooga run ahaantii oo shaqooyinkeeda qaar baa sii dhaafay runtii markaa caafimaadku xuduud ma lihin dadkii intaas waa qoys biday hadday booliya ka soo baxdaan ama jadeeco yar ay ka soo baxdaan ma xiir dheer yar lagu arko dee waa dhibaatooyinkeeda markaa guud ahaan waxaan idinku dardaarayaa in carruurtana aad keensataan shaqaalaha caafimaadkuna albaab walba way garaaci doonaane aada u geysaan carruurteenna si aynu dhibaatadaas jirta aan uga badbaadno wuxuuna bilaabmi doonaa beritooliye 3 cishana wuu socon doonaa run ahaantii marka waxaan idinkula dardaarmaya oo idinku celcelinaya waa dhibaato waxaan idinka diidaa dhibaatadaasi in aynu geebigeenoo isku duubay aan ku hortegnay waa shay lagama maarmaan ilmahaagii kaalay tallaalkii waxba kaagama doonayo tallaali maayo haddana oo dabada dhigataan
waa qoondaro waa xilligii primitive society ma waqtiyadii hore nima ay dhici jirin baan u malaynaya marka bulshooy inagoo isku duuban anu wada kacan marka koobaad ilaahay baa mahadlay marlabaadna waxaan mahad celinayaa hay-adda WHO UNICEF wasaaradda caafimaadka heer qaran isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka madaxa insiijada gobolka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda tallaalka booliyada oo socon doona muddo 3 cisho ilaa mila doona 11 bisha mar labaad waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi anuu laba qodob baan ka hadlayaa waxay tarayso iyo dhibta ay leedahay waxay nagala hadlay wasaaraddii qoladii qaabilsanayd caafimaadka labada qodob ee ka hadlaya waxa weeyaan waalidiinta oo qaata waxay u sheegeen bahda caafimaadka ilmihiisana tallaala qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeye tallaal fuliyayaasha ama dadka qolada tallaalaysa waa inay xilkooda ka soo baxaan kow waxa weeyaan aqal walba inay garaacaan u dhabar adaygaan waxa ay qabanayaan oo wax u qabanayaan waa dadkoodii iyo dalkoodii qoladaa tallaalka qaata waxaan ku dardaarayaa inay kaalintooda bixiyaan ayna ka caajisin guri kasti iyo meel kastoy gaari karaanna gaarsiiyaan tallaalka waalidkana waxaan leeyahay weliba hooyada dhibta hooyaday ku dhacdaa hooyo ilmahaaga tallaal mar hadday kuu sheegeen dhakhaatiirteennii faa'iidada uu leeyahay adiguna aad aragtay dhibtu aday kugu hadhaa hadduu ilmuhu bukoodo haddii walba adaa haya dardaarankaa isgaarsiiyo ilmaha ha la tallaalo oo yaan la odhan lacag baa lagu soo qaatay ama tallaalkuu lagu soo noqnoday kolley dhaqan ahaan soomaalida waxa ku dhiba wixii maaragtay bilaash oo bilaashka inagu dhiba bilaashkaan la dhaqanaan leho bilaashkaan qaadano waxa bilaa lacagtana aadanu isticmaalno ana la tallaala carruurta wuxuuna tallaalku bilaamayaa 11 bisha 3 oo berita xafladuna inoo xiran tahay. Wassalaamu calaykum warahmatullahi